السلام عليكم أصحابتي مقعي عبد الله كنا مقعدين عبيدة أصحابتي نوع سبسود هذا أصحابتي نرجو كتير وتكون ما تنتين سيدا وعن عاد نقول سعتان أصحابي سبسكرايب لايك كومنت شير أصحابتي ما أنتوا حايدين سيابها وفضت الرجل دومر كأيكوكا القاتان لمبرضة صح حاواي سيد تلك أكو أركتين بقى أصحابي واكسوا وينشوا قد بيننا وحير كدب إن الله دعوة عارجيننا أنا ونجي قصليين عارجيننا إذكنين إذا قصليان إن شاء الله نلا دعوة jugs ku dhaha ha isoo cidhiirin ha laysku sabro iyo is-cidhiirsada waa ereyda ugu badan ee dhagahaagu qabtaan intaad saaran tahay gawaarida dadweynaha ee BL-ka loo yaqaan balse waxaa codadkaas isdhaafaya ka dhex faa'iideysta barbaar isugu jira hablo iyo inamo ee isaga baaqa daayaha si ay u kala helaan nambaradooda kadis ayay waa fahanteen oo malena waxa waaye macnaha markii gaariga BL-ka saarta xamar waxa waaye macnaha gaariyaasha xiriir waa inta badan gaari ma ku soo gaarayso marka jaamacad kiimaadka meesha kiimaatid soo daaya ma soo macnaha waxa artayna guriga ciyo ka gaartid marka ma arkaysi gaari oo hadhow ma soo karto qoraxa taagantahay markii gaariga kugu hormaan raaciyarta badana markaas muqdishona waxa loo fadhiistaa kuraasta afar afarti waxa waaye macnaha waxa waaye al falaah macnaha guurino garaadeen soo raacaan waxa booska xiriir noqona waxa soo qaada kala lawiilow tacbitaadii soo fadhiistaan inaas diciisida laga yaabo iga sikay jag iga dheey baaq waa macnaha laga yaabo marmar safafka hore ragga loogu targal inay buuxsamaan kuwa dumarka ay fadhiisatid waa sii wadanayna marka muhiimadu ka hadlayo fiidiyogan afsan doona insha Allah kadis ayay ugu ahayd inaan la kulmo dhacdo noocan oo kale ah inkastoo horey maqalkeeda iigu badnaa waxaan u socday shaqo gaari BL nooca caasiga loo yaqaan ayaan kula kulmay kuma dhiiran kolkii hore inaan muuqaal ka qabto ana horta mobilka si isugu dhiibayaan horta ka helay walahi billaah haddana durbaba waxa igu soo dhacday inaan sheeko ka samayn karo kadib waxaan ba helay dad horay ula kulmay waa idinka gelinayna gadaasheen waxa waaye guriga macnaha waxa waaye banaankiisa waxyaabo badan xayawaana laga yaabaa inay ka qeelinayaan laga yaabaa shanqar inay ka yeerayso asxaab waa idinka gelinayna marka laga yaabaa banaanka in shanqar ay ka yeerayso waxaan lahaayay BL-ka adoo saaran qofaa dhinacaaga soo fariisan karo waxaan lahaayay wuxuu ku dhiibaa mobilka wuxuu ku dhahaa adiga saddexda lambar ugu horeysa eberle xalo soo gelinaya dhameystiro ku dhahaa marmar waa isaga dhameystira marna maxaan lahaayay ku adkeen camal waa Ramla Xasan oo sharaxaysa habka xirfadaysan ee looga dalbaday nambarka taleefankeeda xilli ay saarneed gaari BL ah ayada shircuyso caawa ayada laga dalbaday gaariga safka hore wiilasha fariistaan kan labaad oo gabdhaha ay fariistaan dhinaca daaqadoo jiraan dhinaca kale soo ku farxay maxaa lahaay horta kood markuu gaariga taleefanka inuu isiin rabo maleena kadibna waxaan lahaay yaa ma badana macna taliya sana ayada markii laga qornooyay ayada macna caawa dhima miya macna dhima laga saa lambarkiisa soo geliyo waa dhameystire maya taleefanka bas oo soo dhiibe lambarada ana iska dhameystire laba maalin kadib way soo bacay wiilka BL-ka ku isku arki jirtay maayo maxaa lahaayay saddexda lambar ugu horeysa dil soo geliyo dhameystire in laga rabo aad fahmi kartaa ma ahano inta badan hablaha ayaa qaba in dalabka caynkaas oo kale ah uu kaga yimaado barbaarta waxaase qiraya Maxamed Cabdirasaaq oo mar ka dhex helay gaari BL ah gabar ay hadda xiriir wadaag yihiin dabcan hanti luntay miya macnaha laga dhex helay ayuris waxa igu dhaliyay waxa waaye kahelitaan gabadhaas aan ka helay teed kalena waxaan ku dhiiday in markaas haddii aan ka qaadanin aan mar kale xitaa aan dib u arki doonin dabcan waan isku sheegay inkastoo magacayga aysan aqoon lahayn haddana waxaan xasuusiyey sida aniga taleefanka aan ugu qaatay iyo meesha aan ugu qaatay intaba helidda macluumaad kooban oo ku saabsan qofka aad habkaas ku baranayso ma ahan mid ay ku dhiiradaan dhalinta taas bedelkeeda ay badi adeegsadaan waa arin la yaab leh walaa waxa waaye dad qaar markay maqan la yaabayaan waxa way jirtaa macnaha markay gaari saaranta waxa waaye dhalinyaradii wixii oo loo kala qaraabanayo waa wax kale oo macnaha maanta la isku arkay ma jiro marka intaas ka qaatan wallahi waxyaabo badan waxa waa soo arag xariif meeshaan xutaay videogan dhameysanaynaa kadib qaybta commentiga akhrineynaa waxyaabo anaga soo gaarayna ka sheekeyn doonaa nala socdo baqiyo luqadda jirka ah bulshada ayadoo ila saaran dabcan anigana aanan ku dhex hadli karin aan waxaan sameeyey taleefankayga inta la soo baxay aan 3 lambar oo kaliya aan garaacay kadibna waan gudbiyay
eber lix hal aan dhahay dabcan meel wanaagsan uu gaarsiin yahay maqashay eber lix hal meel macnaha wanaagsan uu gaarsiisan yahay marka arjayna dadkana macnaha ogeen hadda inaad baratiin arjayna insha Allah soo socoto ka faa'iido macnaha inkastoo waqti badan uu socdo hadda waxaan rajaynaa mustaqbal wanaagsan inaan gaarno inaad la kulantay dhacdadan oo kale ama ay ku qabsatay waa mid dhici karta hayeesh dhici karta maxaa way ugu dhacday qaybta commentiga ku jirnaa anaga idima dheeyana waa rag waa dumar laakiin waxaan idin dheeynaa macnaha waa rag waa dumar magacyadooda macnaha idima tilmaamayna oo lajeedkeena waa sidaas sax waaye qofka koowaad waa rag waqtigan ugu socdo macnaha waa ka gaarsiinaynaa wiilkan wuxuu dhahay hadda ka hor anoo BL saaran waxaa la kulmay gabar aad u qurxoon nasiib xumo jeelkiigii uu iga dansanaa waan xasuustaa xilli imtixaan ayaa lagu jiray waxaana u dhiibay scientific ama calculator-ka sida uu ka siisidba waxaana ku qoray eber lix hal gabadha reekaaraan eed kula wax garad ah wallahi runtii way ii qortay heerkaas aan marwaya wallahi keep going saad marka ka labaad u gudbeynaa wuxuu ahaa wallahi mid xariif waa wallahi telefonkiisa ka dambe TV soo isticmaalay qorshaas mid oo adigu anfaca waa macnaha daan iga faa'iido adigana ka faa'iido mid labaad waxa waaye gabar waaye waxay dhahday warqad iyo qalin wiil soo taagay maalmaha kamid ah marka gaariga saarnayna dhaaday gabadhii wiilkii waraaqada ii soo dhiibay iyo qalinkii bas waxa u dhaadana maxaa waraaqada iyo qalinka waa ka qaatay boorsa iska gashtay dhaada marka waxa waaye marka wiilkii inuu tuus ku dhaxo waxa dhaaday gaariga joojiyo iskaga dagay marka waxa waaye warqada iyo qalin xataa wiilka sheekada marka xariiftinimo waa ayada ergaan maraysa warqada macnaha la isku dhiibaya warqadii waxa gaariga la iskaga dagoyaa wiilka waxa waaye wiilkan kale wuxuuna dhahay gabar ma ahati qofkii hadda wiilkan kale wuxuuna dhahay mid saaxiibkii ahaa ayaa waxa ku dhacday maalin in uu gabar u dhiibay jeelkiisii misna lambarkeedii hal lambar ka dhiman ayay soo gelisay kadibna BL ayay ka degtay kula BL way ka degtay saaxiibkii kula xanaaq kadib waxa dhahay kula dhib ma lahan nambarka ka maqan waa heli kartaa eber ilaa 9 kula inta u dhaxaysa barakayso laasi weera ne wallahi asxaabi kuli ko jiro waa idin raali gelinayna saaxiibkii waxa waaye arina qabsatay macnaha meel intuu aaday marka waxa waa kaliya idin soo gudbinayo qaybta commentiga sii wadayna marka waa idin raali gelinayna kuni ko jir qofka iga soo qabanayna waa wiil aniga ahaan kula ugu yaraan 10 waa ka qoray kula laakiin kula hal kamid ah aheed ayaan wacay kula 10 kan ka qoray hal kamid ah ayaa wacay heerkaas ayaa marooya kula dhex fadhiyo Janis ayaanba u arkaa inta aan dhex fadhiyo BL-ka waliba agteeda ayay batuulo fadhisa kula waa ku sii faraxsanahay waan ka qaleynaa kula no wallahi billahi taala adaa Soomaalina anaga waxa waaye nalaguma dhacaadi qofka iga sii qabanayna waqti aan ugu socdo waa gabar qofkan commentiga soo qorayo qofkan waxay tiri waxaan xasuustaa wiil maalin sida oo kale teelka ii soo dhiibay kula oo aan boorsada gashtay kula meeshii dagaal yaray kula teleefankayga isii dagaal kadib yari teleefankayga isii iyo ma anaa ka xoogay adiga isiise ni horta waxaa la yaabaa gabdhaan macnaha mobilka u maleeyaan in la siiyey eber li xala loo gelinaa lambarka soo qor waaye macnaha oo mobilka in la siiyey u maleeyaanba walaa waa dhibantiina wallaahi bilaa meel cilli qorsagaaro ku hayaan qofka xigtaa u wareegayna ama qofka xigo waa wiil anaga waa sidaan horey kugu sheegnay magacyada ma xaraabayna idin dhahnay marka wiilka idin soo gudbinaynaa macnaha wuxuu message ka soo qoray ani waxaan xusuustaa wiil intaan eber lix hal geliyay kula gabar teleefanka u dhiibay kadibna laamiga ku tuurtay teleefankii ay xanuun wallah saas yeelna ku dheena qof xanaaq badan qof kala jiro marka macnaha gaariga soo kortay BL-ka lagu kala gartaa wajiga si fiican fiiri kadib u dhiibay qofka u dhiibay sidaas waa iska ilaaliyaan ku dhiilaa waxyaabahaas oo kale waaye gabadhan waxay tiri qaybta commentiga wallahi kula marar badan ayay igu dhacday
isha ayaa isha kula ayaa lagu jibinaa ama xijaabka jag lagaa siinaa kula markaa fadhiisato teelka lagu dhiibaa eber 6 hal adna lambarka raacinay laakiin aniga kuma adkeeyo kula hadduu yahay qof qurxoon ama laakiin hadduu duluf yahay waan iska dabaaliyaa asxaabi noo dulqaata cod gaar haddaa ma haleysaan micnaha ayaan loo qabanin insha allah wadniya qoftaa waxaa dhulkee dad ku jiidee yaa kula macnaha qof qurxoon hadduu yahay mise qof labisto ama qof oo hadduu yahay taagan tahay ani kuma adkeeya rag badana hadduu yahay qof qurxoon qof walxuma hadduu yahay uu ku adkeeya ay taagan tahay keep going gabar waaye qofka xabi waad ka raaligelinayna gadaasheen xayawaanaha ka qeylanayo marka deedin dhiban waad ka raaligelinayna wiil waaye nin naag gaari la saaran kula lambarka ka qaado kula aniga indha adeeg uu dheer yahay kula maxamar oo wada faadmo cornel abba naag aan aqoon lambarka ka qaadana 32 like u helay ka waran faadmo cornel ana isilaaliya digidid marka kumantiga alaasoo ku keenina kuleel jira awgeed marwaacadan way naga dansantahay way ka raaligelinayna haddii macnaha oo gadaasheen buuq iyo wax ka dareetiin kina koo jeer ayna macnaha kulan dambe insha